waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan ama isweydiiyaan dukaamo badan oo Soomaaliya oo isku garab yaala oo isku shay isku mid ahaya ama dirac ha noqoto ama maqaaxi ha noqoto sababta ay iskaga garab dhistaan haddaba sababtaas waxaa laga yaabaa inaan u aragno inay go'aan khaldan ay sameynayaan ama shay businesska ama ay lacag ku heli lahaayeen inayna sameynin innaka ahaan dadka wax gadanaya waxa inoo fiicnaan lahayd inay meelo kala duwan ay ku yaalaan si ay inoogu dhawaato adeega bulshada ay u sameynayaan laakiin iyaga ahaan ama iyaga inay businesskooda ay lacag ka dhaliyaan waxa strategic lahaan u fiican ama ay sameeyaan waa qeex wuxuu leeyahay xisaab lagu qeexi karo qeexa xisaabta lagu qeexi karo waa game theory ama hoteling model waxa loo yaqaan game theory-gaas marka ay gaadho waxa loo yaqaano dheelitirka Nash ama Nash equilibrium markaas baan insha Allah isku daynaa inaan qeexno horta eraygaas because waxaan u isticmaali doonaa inaan ku qeexno dukaamada sababta ay isku agyaalaan dheelitirka Nash muxuu yahay dheelitirka Nash ka soo qaad laba qof raba inay ciyaaraan gabadh iyo wiil baa raba inay ciyaaraan midkoodna ciyaarta in laga badiyo ma rabaan Faadumo iyo Axmed Faadumo waxay rabtaa inay game ka badiso Axmedna wuxuu rabaa inuu game ka badiyo Nash dheelitirka Nash waxa la gaaraa Faadumo shay markasto ay ciyaarayso ciyaarteeda iyada kali fikirkeeda ama go'aankeeda kuma xidhna in ciyaartaas ay gaadho dheelitirka Nash waxay ku xidhan tahay also in ay go'aan kasto ay gaarayso ay ku darsato meesha go'aanka Axmedna sida sileeg waa inuu go'aankiisa uu gaarayo ay isla markaa ku darsato isla markaana midkoodna una bedeli karin go'aanka uu midka kala gaaray hadduu mid bedelo way ka baxaysaa dheelitirka Nash oo mid baa badinaya midna wuu lose gareynaya laakiin labadooduba ma wada badanaya ama labadooduba faa'iidadii ma wada qaybsanaya ka soo qaad laba dukaan oo ku yaala wadada High Street-ka ee Harlesden marka hore waxaan tusaale sameynaynaa ka soo qaad hal dukaan inuu ku yaalo dukaankaas aan magaciisa dhahno Banaadir baa la dhahaa oo baa u soo qaadano dukaankaasu meeshuu rabo buu kaga ooli karaa maadaama isagu kaliya yahay dukaankaas wadada ku yaala halkan buu kaga ooli karaa laakiin meel ahaan waxa ugu fiican inuu noqdo dhexda oo meesha ugu dhex bartamaysa sababtoo ah dadka xagan ka imanaya iyo dadka xagan ka imanaya in bay u soconayaan marka taa darteed waa optimum position-ka ugu fiican wuxuu ku ooli karo waa dhexaad marka kaas meesha rabo ku ooli kara laakiin meesha ugu fiican dadka ugu waxaysan waa dhexda inuu ku yaalo haddaba ka waran hadduu Banaadir dukaan halkaa ka furto kadib dukaanka markuu furto muddo uu joogo successful muddada ku noqdo ka waran hadduu dukaan kale oo la dhaho aan ka soo qaadno Saaxil inuu ku soo biiro laba dukaan ba hadda markaa ku taala labada dukaan markaa aan dhahno Banaadir halkan hadda ku yaala Saaxilna aan dhahno halkan ku yaala meesha u dhaxaysana waata oo bartankii aan dhahno bartankii way marka dhinacan dadka ka imanayo dhan waxa helaya Saaxil dukaanka Saaxil baa helaya wixii dhinacan ka imanayo dhanna waxa helaya dukaanka Banaadir haddaba intan u dhaxaysa waa aan dhahno way isla egtaa labadan qaybood way isla egtaa 50-50 bay ku helayaan marka meesha ay joogaan isku in bay dadkii helayaan ka soo qaad maalmaha ka mid ah Banaadir baa wuxuu go'aansaday dukaankiisa meesha uu ku yaalo meel aan ahayn inuu ka soo dhawaado oo halkan yeesho oo halkan ka dhigo marka Banaadirka cusub baad aan dul dhigno halkaas marka ku yaala marka Banaadir markuu hadda halkan uu ku yaalo ki Saaxilna halkiisa ku yaalo Saaxil intii halkan wuu haystaa laakiin Banaadir ka waran hadda in badan buu halkan haystaa dhexduna waxay ahayd halkan baan niri Soomaa marka tan wuu la share gareynayaa oo hadda qaybtan iyo qaybtan way isla share gareynayaan labadooduba laakiin qaybtii hore ka badan Saaxil markaa si uu dad badan isaguna u helo ودadka halkan uga helo Saaxilna meeshuu joogo ka soo guuri halkan buu imanay ilaa ay marka dambe si mid kasta u soo soco labadooda dukaanka Banaadir
iyo saaxil waxay labaduba iskugu iman dhexbartanka markay labadaas dhexbartanka iskugu yimaadaan halkan dadka uga imanaya iyo halkan dadka uga imanaya way isla ekaanayaan saa darteed labadooduba waxa u ah optimum inay noqdaan inay labadooduba dhexda ku yaalaan hadduu mid ka mid ah dhinac u guuro wuxuu noqonayaa midka kale inuu haddana guuro saa darteed hadda meesha markay marayaan ay saa tahay waxaa loo yaqaanaa habdheelitirka Nash ama Nash equilibrium labadood marka hadda wax kastoo ay helaan dukaankaas shacab kastoo hela 50% bay share helayaan saa darteed bay labada dukaamood ay isku meel u yaalaan taas waxaan sharaxnay habka ay dukaamadu isku maaragtay sababta ay dukaamada Soomaalidu isku meel u yaalaan taas waa sababta koobaad sababta labaad haddaba maxay wax u wada gadaan hadduu mid ka mid ah wax gato wax cusub soo qaad ka soo qaad mid baa sheet cusub soo gatay ama shaygan dumarku xidhaan soo gatay ka kale maadaama isku meel ku yaalaan si uu u helo customerkiisa uu exactly u share gareeyo isaguna waa inuu sheetkii soo gato maadaama ay isku wax labada dukaan ay gadaan midba midka kale markuu u dhawaado bay iyagu labadoodu waxay helayaan in iskula mid ah saa darteed bay marka dukaamada Soomaalida ama maqaxyaha Soomaalida ama meelaha kale ee Soomaalida isku meel ugu yimaadaan oo si ay u share gareeyaan dadka ay helayaan labadoodu dukaanna faa'iidada u barbay u helayaan saa darteed isku meel u yihiin